بسم الله الرحمن الرحيم qodobadaan idin hayana waxa kamida ilaa iyo shan qarax oo kala duwan ayaa goor dhaweyd ka dhacday qaybo kamida gudaha wadanka Iran iyadoo warbaahinta kala duwan ee dawladdaasi ay tilmaamayaan in ay xiisada iminka sii kululaanayso maxaan ka naqaanaa goobaha la weeraray dhinaca kale dawladda Sacuudiga ayaa ku dadaalaysa sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa colaadda sii xoogaysanaysa عباس عراقشي iyo waliba dhigaysa wadanka Sacuudiga ayaa wada hadallo dhaxmareen dawladda Iran waxa la ogaaday gantaarihi ay ku garaacday qaybo kamid ah wadamada Khaliijka in ay gaareen bartilmaameedkooda haddaba ma jiraan qasaarooyin ay geysteen muxuu qorayaa wargeyska The Wall Street Journal madaxweynaha dalka Mareykanka maxaa ku qasbay in uu qaato wadada dagaalka isla markaana uu ka baxo kulankii wada xaajoodka Trump waxa uu leeyahay xabad joojin aynu kula jirnay heshiis dhinaca Iran waa soo gabagaboobay tan ma la dhihi karaa gobolka bariga dhexe waxa uu aaday dagaal dhameystiran ilaa iyo shan deegaan iyo magaalooyin kala duwan ayaa laga soo sheegayaa gudaha wadanka Iran in ay ka dhaceen qaraxyo aad u xoogan oo dadka ka salaliyay ciidamada Mareykanka ayaa loo badinayaa in ay si toos ah caawa mar kale u weerarayaan gudaha wadanka Iran wakaaladaha wararka ee dawladda ayaa ku dhawaaqaya in qaraxyada la maqlay ay ahaayeen kuwa culus oo dadka ay soo tabinayaan warbaahinta dawladda Iran gaar ahaan wakaalada Mehra ee ku dhow ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa sheegaysa in qaraxyo isdaba jooga laga maqlay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala koonfur iyo koonfur bari ee wadanka Iran xilli ay sii kordhayaan xiisadaha amni iyo kuwa military ee ka taagan gobolkaasi saddex qarax oo kaliya waxa laga maqlay magaalada Konak liiraahdo oo ka tirsan Sistan iyo waliba gobolka Balochistan ee koonfur bari wadanka Iran lix qarax oo kala duwan ayaa sidoo kale laga maqlay Bushehr iyo deegaanada ku dhow ee gobolkaasi koonfurta ku yaala dekada Bandar Abbas ayaa sidoo kale laga soo warinayaa qaraxyadan dadka deegaanka jihadeeda inay ka maqlayaan ilaa iyo hadda ma jiraan warar rasmi ah oo faahfaahinaya sababta qaraxyadan mana dawladda Iran ma sheegin qasaare inay jiraan warbaahinta gudaha waxay leeyihiin ciidamada cirka Iran waxa ay ka jawaabayaan bartilmaameedyo ay u arkaan inay halis yihiin in la weerarayo waxana xiisadu ay u muuqataa in ay hadda ka sii darayso marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan dawladda Saudi Arabia waxay caawa ku dadaalaysaa in colaadda gobolka bariga dhexe loo helo xal dhameystiran marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan أمير فيصل بن فرحان أمير فرحان أنا هذا على السعود وسيرك أمورها فيصل بن فرحان وسيرك أمورها دبادة السعودية أي الله عباس عراقشي من عيده وحي إسلاف قران أيام بالسدي علادا حلقة مدن بيسا لو جهل لها وسارت أمورها دبادة إيران أي شاعسي هو سيرك أمورها دبادة وطن كاسي عراقشي والله الله قد كتلفن كاس أمير فيصل بن فرحان ووزيرka amuraha dibadda ee Sacuudiga iyagoo ka arinsada xaaladaha ugu dambeeya ee amniga gobolka bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri labada wasiir waxay diiradda saareen xiisada sii kordhaysa ee ka taagan gobolka gaar ahaan isweydaarsiga weerarada militariga ee Mareykanka iyo Iran wada hadalladu waxa sidoo kale lagu falanqeeyay arrimaha colaadda iyo yareynta diblomaasiyadda kor u qaadida diblomaasiyadda kulanka telefoonka ayaa imanaya xilli ay xiisadu sii kordhayso walaac badan laga qabo dhibaatooyinka dagaalku inay sii ballaartaan madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump waxa la sheegay dagaalkan kale in ay ku riixeen oo mowqifkiisa ay bedeleen xogayaha amuraha dibadda Marco Rubio iyo waliba Pete Hegseth oo ah wasiirka ama xogayaha gaashaandhigga ee wadankaasi Mareykanka kulan ka dhacay aqalka cad ayaa Trump lagu bedelay isagoo ku sugan magaalada Ankara kadibna waxa uu bixiyay go'aanka dagaalka Trump waxa uu sidoo kale leeyahay wada xaajoodkii Iran waan soo xiray wixii hadda ka dambeeyana tallaabo awood iyo military leh ayaa la isku adeegsan doonaa wargeyska caanka ah ee The Wall Street Journal ayaa daabacay warbixin faahfaahinaysa saacadihii ugu dambeeyay ee ka horeeya weerarada uu Mareykanka ku qaaday bartilmaameedka ku yaala agagaarka marinka Hormuz iyo sababihii bedelay mowqifka Donald Trump haddaba muxuu ahaa kulanka ka dhacay aqalka cad
warbixinta wargeysku waxa uu leeyahay fiidnimadii Isniinta xogayaha muraha dibadda Mareykanka Rubio iyo xogayaha gaashaandhigga ama dagaalka Pete Hegseth ayaa galay aqalka cad halkaas oo ay Trump ugu sheegeen in Iran ay rideen gantaal nooca cruise-ka isla markaana maraakiib iyo diyaarado ay halkaasi ku weerareen qatartana dagaalkuna ay sii ballaaranayso. Trump waxaa loo sheegay ilaa iyo 3 markab in waxyeello la gaarsiiyay xiisadana hadda ay u muuqatay in Iran aanay nabad u baahnayn. sidaas darteed Trump waxa uu talooyin weydiiyay dhinacyada la taliyaashiisa ah kadibna waxay u sheegeen in la joogo xilliga wadanka Iran la weerari lahaa. haddaba muxuu ahaa ujeedada weerarka dhacay fiidnimadii Arbacada sida wargeyska The Wall Street Journal uu warbixintiisa ku sheegay. wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth ayaa sheegay in Mareykanku uu qaaday weerar aad u ballaaran oo qoto dheer halka taliska ciidamada Mareykanku ay xaqiijiyeen in duqeymahoodu ay sii ballaarteen. howlgallo sira ayaa la sheegay in ay ciidamada Mareykanku ay sameynayeen isla markaana ay sabab u ahayd dowladda Iran inay ka xanaaqdo. dhinaca marinka ku dhow Oman ay ciidamada Mareykanku waxa ay galbinayeen maraakiibta halkaasi maraysa. maraakiibtuna waxa ay dansanayeen baliire qalabka AIS la yiraahdo ee lagula socdo maraakiibta halka naaquudayaasha maraakiibta dagaalka ee Mareykanka iyo shirkadaha markabkaasi iskale ay xiriiro toos ah wada sameynayeen iyo waliba kabtanada maraakiibta qaar waday tan oo Iran ay ogaatay kadibna ay duqeymaha iyo weerarada ay keeneen kadib markii ciidamada ilaalada kacaanku ay sahan ku sameeyeen diyaarado drones ah kadibna la ogaaday in la joogo waqtigii weerarka la qaadi lahaa. Trump markii uu weerarka amray waxa uu soo celiyay in cunaqabatayntii badda Iran la soo celiyo sidoo kalena waxa uu amray in la joojiyo ruqsadii iibka shidaalka dowladda Iran. Maxamed Baqir Qalibaf oo ah afhayeenka baarlamaanka wadanka Iran iyo sidoo kale ninka galka wada xaajoodka dowladda Iran ayaa waxa uu leeyahay dowladda Iran ma celiyaan tallaabo kasta oo Trump iyo dowladdiisu ay qaadeen waxaa la joogaa xilligii laga gudbayay hanjabaadaha aan macnaha badan ku dhisnayn ee dowladda Iran ay la kulmayso. warbixintu waxay sidoo kale xustay in waqtiga ay Iran qaaday weerarada uu si gaar ah uga caraysiiyeen Trump markii uu sheegay in muddo 7 oo xasilooni ah uu bixiyay ilaa inta laga caasiyo hogaamiyihii geeriyooday ee wadanka Iran ninka la yiraahdo Ali Khamenei oo aaskiisa maalmihii ugu dambeeyay lagu jiro oo la doonayo in lagu caaso magaalada loo yaqaano Mashhad ee wadanka Iran. dhinaca kale warar soo baxaya caawa waxa ay tilmaamayaan in dowladda Iran duqeymihii ay samaysay ay si toos ah ugu dhaceen bartilmaameedkooda sida caawa ay qorayaan qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn ee ka soo baxaya dalka Mareykanka. wargeyska caanka ah ee The Wall Street Journal oo soo xiganaya mas'uuliyiin Mareykan ayaa sheegay in qaar ka mid ah weerarada gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay gaareen saldhigyada ciidamada Mareykanka inkastoo inta badan weeraradaasi aanay wax khasaare ah geysan. dowladda Mareykanka ayaa qudheeda sheegtay in ay ballaarisay weeraradii ugu dambeeyay oo 48 saac la soo dhaafay 170 bartilmaameed ay sameeyeen. waxaana ay sheegeen 80 maalintii hore inay sameeyeen 90 bartilmaameedna ama duqeyna maanta la sameeyay. goobaha ilaa hadda la weeraray waxaa ka mid ah meelo ay yeelaan nidaamyada difaaca cirka ee dowladda Iran, xarumaha taliska ciidamada, saldhigyada raadeerada xeebaha, gantaalada goobaha ee maraakiibta loo isticmaalo, baqaarro kayd ahaa, in ka badan 60 doonyood oo la burburiyay waa sida Mareykanku ay sheeganayaan iyo xarumihii saadka iyo kaabayaasha militariga ee xeebaha ku teersanaya wadanka Iran oo dukumtaakum laga dhigay sida uu ku waramayo sargaal sare oo hadlay dowladda Mareykanka. laakiin Iran qudheedu ma yaraysato marka la fiiriyo duqeymaha maanta ay sameeyeen 85 goobood oo militariga Mareykanka uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe ayaa weerarada lagu qaaday. goobaha sida gaarka loo weeraro waxaa ka mid ah 2 saldhig oo ku yaala wadanka Kuwait sida saldhigga Ali Al Salim iyo Kam Arifjan la yiraahdo. saldhigyo ku yaala dalka Bahrain waa la weeraray sida Jufair iyo Sheikh Isa. nidaamyada difaaca cirka ee Patriot ee Kuwait ayaa la sheegay waxyeello inay gaartay. kayd sidaal oo Mareykanka uu ku leeyahay Bahrain waa la duqeeyay. xarun isgaarsiineed oo dayax gacmeedyada ku tiirsan oo Qatar
ka dhisanna waxaa la leeyahay burbur ayaa soo gaaray difaacyada gobolka oo weerarada xoojiyay baa liri in ay ka hortagaan dalka Kuwait oo kale waxay leeyihiin 3 gantaalo ballistiga ayaan soo ridnay hal gantaalo cruiser waan ka hortagnay 10 diyaaradoodna dhulka ayaan soo dhignay dhinaca Iran 14 qof ayaa weeraradii ugu dambeeyay ku dhintay halka 78 kale la dhaawacay 47 qof oo dhaawacyada kamid ah ayaa cisbitaalada yaala dekad ganacsi oo ku taala Srig ayaa la weeraray dekadaha kalluumaysiga ee Bandar Abbas duqeymo ayay la kulmeen cisbitaalka Imam Ali ee Jabahar waa la weeraray magaalada Afhaas ee gobolka Qoristaan duqeyn ayay la kulmeen sidoo kale waxa la weeraray xadiidka ee treenka isku xira Mashhad iyo Tehran xilli ay xaaladdu aad u sii cuslaanayso madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in xiisadani ay aad u adag tahay isla markaana uu soo afjaray wada xaajoodkii xabad joojintii uu kula jiray dowladda Iran madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump baa yiri shirkii NATO intii lagu guda jiray ayuu ku dhawaaqay wada xaajoodkii in uu soo afjaray xabad joojintiina ay dhamaatay jawaabta Iran waxa ay leedahay lama joogo xilligii dowladda Iran cagaha dhulka loogu dhufan jiray oo la baqdin gelin jiray Qalibaf ayaa sidaas leh waxa uu leeyahay weerarada Mareykanka waa laga jawaabayaa una qabataynta saliidda tabar annaga weyn iyo dhibaato nooma geysan doonto duqeymaha ka dhacay koonfurta Iran jawaab baa laga bixiyay taageerada Mareykanka ee Israa'iilna isagoo un baa ka shalaay doona dalka Qatar ayaa ku dadaalaya sidii dhaxdhaxaadin xoog leh dhinacyada isaya loo kala dhigi lahaa ra'iisul wasaare Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ayaa ku dhawaaqay in qadka telefoonka uu kula hadlay wasiirka amuraha dibadda Ciraaq Iran Abbas Araghchi Qatar waxay cambaaraysay weerarada waxana ay tiri dhinacyada waa inay u soo laabtaan miiska wada xaajoodka oo dagaalkan hadda taagan la soo gabagabeeyo sida dooda Mareykanka ka imaanaysa ay hadalkooda u dhigayaan bacaawa waayahay dhinaca Iran aan ka soo kaxeeyo ma waxa la joogaa xilligii ururka Hezbollah la duban lahaa Mareykanka uu oran lahaa Iran aniga hal leegu daayo Israa'iilna ha ka adeegata Hezbollah kulan ayaa la filayaa inuu ka dhaco magaalada Rome ay isugu imaanayaan mas'uuliyiinta dowladda Lebanon iyo nidaamka Israa'iil albaabada ayaa loo xiri doonaa sidaas waxa ku waramaysa wakaaladda Reuters ujeedadu waxay tahay in xiisadda ka taagan dhinacyada la soo gabagabeeyo wada hadallada waxay hadda u gudbeen baa la yiri marxaladda xarunta fulinta qorshaha lagu heshiiyay waxaana socda diyaarinta qariirad cusub oo go'aamin doonta deegaanada laga baxayo taliska Centcom ayaa hawshan la soconaya dowladda Iranna meesha kaalin kuma laha laakiin Lebanon iyo Israa'iil baa qol ku yaala Roma oo Talyaaniga isku soo xiri doona go'aamana way gaari doonaan waynu eegi doonaa wararkaas iyo waxay kale ee ka soo kordhay khiyaarta ay nala socotay tabinta iyo taxliilinta wararkii ugu dambeeyay caawa qaybtan intan ayaan ku akin doonaa xiisado kale ayaa wali gobolka ka taagan dhacdooyinka ayaynu eegi doonaa tabintuna waa noo sii socon doontaa fadlan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin